بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrimo badan oo la soo maray iyo kuwa lagu jiro iyo kuwa iman kara. dowladda Soomaaliya sheegata ee aan meel la xukumin bilow ilaa dhammaad waxay nagula jirtay dagaal haba ku jirtay dowladihii la soo maray waxay ku kala duwanayeen dagaalka oo waxa ka muuqday cadaawad ay noo qabaan oo heerkeedu aad u kala sareyso. tusaale ahaan madaxdii dowladda Soomaaliya ka soo noqotay madaxda kuwa hawiye iyo kuwa daarood bay haay hadalka afka ka dhowri maayo markuu run yahay lagama dhowro afka. madaxda daarood ee qabsatay madaxda ka noqotay Soomaaliya daa warqad mooyaane wax kale haystaan jirin, warqad la itiraafa mooyaane wax kale haystaa ma jirto. madaxda nimanka ka noqday Cabdilaahi Yuusuf baa ugu horeeyo dagaalkii ugu weynaa abad Soomaaliland la galay. ninka aan ogeyn waan u sheegaya, waan tusaya, waan xasuusinaya. waynu joognay dadku in badan baa waxay ogyihiin haddana aan xasuusan ama aan dhugu yeelan, laakiin anigu waan xasuusnay. dagaalku inala galay wuxuu ahaa mid dhaqaale ayuu galay, heerkii ugu weynaana wuu la gaaray. dagaalkaa wuxuu la galay Soomaaliyana wuu la galay, innagana mid dhaqaalena la galay, Soomaaliyana mid gacan buu la galay oo dowladdii Itoobiya guuraysa buu ciidamadeedii iyo gaadiidkeedii iyo kaaraheedii xabar keenay. xoog buu ku burburiyo nimankii hawiye deganaa, hilfuhu qaado habqankoodii iyo qaxoontigoodii baa Hargeysa yimi iyo Burcayo Boorame. may dhicin tuu ku sameeyey kaaraha taasisada kaaraha la mariyey hawiye. innagana wuxuu tijaabiyey oo uu ku hamiyey inuu dhaqaaliyan inoo curyaamiyo. dhaqaaliyan buu inoo curyaami ku talagalay inuu dekada berbera hilfaa u qaado oo uu xidhaabo ku talagalay Boosaaso furo. dhaqaalaheenu xilligaa aad buu u wanaagsan. waxaan ka shaqaynayay meesha la yidhaahdo Baali, sayladda ugu weyn ee xoolaha inoo socday. haddii alla kuu roon yahay badeecadeennu waxay ka dhoofi jirtay oo ay ka bixi jirtay Hargeysa iyo meesha la yidhaahdo Harta Sheekha, labadaasoo ay uga bixi jirtay labada kaliil ee Oromada iyo ka Soomaalida. gaarigeena Hargeysa ka baxa ama Harta Sheekha ka baxa isagoo lambarkii Somaliland leh ayuu ka degi jiray, ayuu gaari jiray Nagiila Boorana, xaggana Baali buu gaari jiray Galil hoosteeda. boqolaal gaari baa waagii bariyaba ka bixi jiray Somaliland oo waxna Harta Sheekha ka bixi jireen, waxna ka bixi jireen haddii alla ku roon Hargeysa iyo Burco, ayagoo waraabinaya kililka afraad ee Oromada iyo ka shanaad. waa loo fikiray dhaqaalihiina si loo xidho. waxaa lagu fikiray in neefka adhiga ee dhoofayana laga xidho halkaa, in gaadiidka waxqaadaya la xidho, in sayladii haddii alla kuuri Harta Sheekha la xidho, in dekada berbera la xidho, ta Boosaasona la furo, halkaa bedelkeeda ay noqoto Boosaaso. waxa uu adeegsaday ninkaasi dadka aynu deegaankani ogaadeen isaga oo u tusaya cadaawad dhexdeena dhigaya si ay waxba la inaga soo qaadan oo Boosaaso ay bedelkeedu noqoto halkii Boosaaso la geliyo. ninkii aan ogeyni isaga waan xasuusinaya, anigu waan dhex joogay xilligaasoo Baali baan joogay iyo Nagiila Boorana. gaariga halkaa ka qaadaaba halkaa gujida u geeyay laabta iyo Booranta iyo nimanka halkaa dega Booranta ah ee Kilarati ee Oromada ah. xaggan kalena Caruusa ayay geli jirtay xoolaheenu, Gindir iyo Gooba iyo halkaa Roobey, Gindir iyo Gooba iyo Roobey iyo halkaa ilaa Dalamana ilaa Sisamane ilaa iyo meesha lagu yiraahdo Sidaamo ay xoolaheenu gaari jiray. Walayta Sawda iyo halkaas xoolaheenu geli jiray. huudirka laga raarkaas ayaa halkaa geli jiray. yacni dhaqaalaheeni xilligaa wanaagsanaa dagaal ariga dhulab la galay. Ismaaciil Buubaaga imka joogaana markuu nala dagaalamayo wasiirka khaarijigu ahaa dagaalkeena qayb buu ka ahaa. isagu waa
وشقيشني oo dagaalkana qayb buu ka hawl wali jiray haddii alla ku roon yahay dawladda Cabdullaahi Yuusuf iyadoo bartanka dagaalkiina ka jirtay xilligeedii ayaa laga qaaday xilkii oo Sheekh Shariif la dhisay oo dib loo dhisay Sheekh Shariif wuxuu noola macaamilay dawlad buu noola macaamilay in dhaqaalaheena iyo aan la naga dagaalamin sharbayna wada yeelanay in dhaqaalaheena naga dagaalamin bay noqotay haddii alla ku roon yahay siyaasad qabo bay ku soconay madaxweynayaashii hawiye Cabdullaahi Yuusuf waxay soo gaadheen Maxamed Xaaji Ibraahin cigaal Ilaahay u naxariistay oo nabagaha iyo haddii alla ku roon yahay riyaada xilligii Maxamed Xaaji Ibraahin cigaal daan ku noqdo dagaalkii ugu weynaa baa layna gula jiray in adag baa wadanka haystay oo fartooda garanaya waxaa layna gula jiray dhaqaalaha laga naga xanibay oo dagaal laynaga galay waxaa laynaga xanibay haddii alla ku roon shirkii cartaal dhinac naga furaa dagaaladii ugu waaweynaa oo waxaan ku nooc walba bay nagu socday xilligaa haddana waxaa lagaga baxay karti iyo adayg iyo caqli ninka wadanka haystay nin khabiira oo nin walba fartiisa garanaya buu daahir yaalana kaalintii ayuu ka sii qabsaday dhaqaalaheena maanta intan maanta uu mariyo kulliitay xooggeena uu ka liitay awooddeena way ka liidatay dagaalkuna wuu nagu socday weligiiba waxa yimi farmaajo oo ra'iisul wasaare ka noqday haddii alla ku riixo Soomaaliya 6 bilood oo qura markuu ra'iisul wasaare ahaa waxa uu inala galay dagaal ballaaran isaguna SSC iyo abtiyaaladii buu isaguna ciyaarsiyo nagu furay koobaha muddadii yar ra'iisul wasaare uu noqday dagaalkaas nagu bilaabay haddana markii imika madaxweynaha uu noqday iyadoo beelahdiisa taalo oo meel walba beelahdiisa taalo ayuu dagaal kale nagu bilaabay kii maalintii uu wadanka madaxda ka noqday uu bilaabay ilaa maanta ku jira ilaa maanta ayuu ku jira waxa la isku haystaana waa nolosheena iyo dhaqaalaheena iyo nabadgelyadeena ayaa la doonay in la curyaamiyo diyaaraddu raaca iyo safarku galaabo waa mid dagaal uu inaga nagu maqan yahay madaxweynayaashii kale hawiye kamuu gaadhin dagaalku halka kuwan sideedabana Soomaaliya waa in wax sheegta iyo in wax loo sheego Soomaalida kale koonfurta waxba loo sheega cidda wax sheegtana waa nimanka daarood anuu afka ka dhowri maayo oo hormajeertay horkacayo dagaalka lagu jiraa way muuqataa waa Puntland sharka galeysay media ka hadlaysay waa berbera in la xiro boosaasana la furo may qarsanin waxaana u markhaati BB Wall boosaaso heshiis bay la gashay oo sidii inaga eebaynayno la gashay cid kama qaylin cid kulama dagaalamin cid kama hadal inagana waa taawgeedin halka gaadhay dagaalku wata maraakiibteennii baxay ariga qaaday wasiir dhanba u dhoofay isaga aawadi oo haddii alla ku runay u tagay Saudi Arabia iyadoo markabku inaga wareegay xoolaha markaa inaga baxay wuxuu ku baxay oo lahaa imika bangi islaamiya iyo Sacuudiga ayaa isku haystay bangi islaamiga Sacuudiga xukumo awood ugu ballaaran ku leh waxaan u soo qaadanayaa waa dagaal dhaqaale oo inagu socda boosaaso way shiraysay last week waxay u shiraysay berbera iyo Somaliland haddii alla ku roon yahay dagaalka cirka iyo dhulka ayuu maraya waxaan leeyahay on la hadlaya Soomaalida jawaasida haysatay boqolaalka gaadhay ay min kama yar 100,000 oo qof kama yar waxay dhaleen iyo waxa sii dhaleen oo Sacuudiga u badan waxaan leeyahay Sacuudiga inuu nagaga xoog bato niman deganayn oo aan raad ku lahayn sideen oo kale waa noo doqoniimo kuwa dhasheen iyo kuwa ay sii dhaleen inta jawaasida haysatay degan ee businesska ku haysatay sharaa'iga ku haysatay ee dawladda ka midka ee la shaqeysa wayna ognay khaliijka oo waa wasta khaliijka iyo afgarasho sharcigiisu warqadda soo baxda waxa joojin kara inay yaro boqortooyada ku xidhan baa joojin kara gabigeeda waxaan leeyahay qof waliba safir noqdo dadka Sacuudiga joogow iyo kuwa Imaaraadka jooga jawaasida haysto ka kaca dagaal baa laynagula jiraa foola oo dhaqaale oo iyo mid military imika ku daba jira safar bay ku tageen wafti qadari imika gobolada dhexe shaqada gobolada dhexe laga wado ra'iisul wasaaruhu ka wado iyo dawladaha
taageeraya ee Qatar iyo Turkiga waa mid military oo mustaqbalka lagu soo qaadayo Soomaaliland waxa loo soo waray dagaal dhaqaale lagu jira kii military lagu xiga mid gudaheena ayaa la wadaa oo kala fufay mid gudaheena la wadaa beenadii sheegi maayay qaar af Soomaaligu ku adag yahay ayaan wax xisaabtamaya barkii ku xisaabtamaya oo garxas Soomaaliya doonaya hadda Soomaaliga aba kooda garxas ma taqaan ama ku mal dhow guuri garxas Soomaaliya doonaya soo garxas ma taqaan suuri Allah waan maqlay halka shalay la maraya waxa leeyahay madaxweynaha Soomaaliland madaxweynuhu dadkaaga miday mid ku naab iyo mid ku jecel iyo mid walba aad madaxweynuhu caaqil noqo waxaad adowgaaga iska celin kartaa dadkaaga aad midayso doorashooyinka oo inoo dhaca waxay ka naxinayaan cadowgeena xisbiyada mucaaradka ah sharciga ha u eegina tanaasul badan samee oo xukuumadda ku jiifso oo xisbigaaga ku jiifso si ay cadowgeena isaga celino oo far kasta ay ku gabadaan iyo wareeg kasta kula wareegaan xisbiyada mucaaradku ayagoo kaaba gardaran tooda wax badan isdhaaf wax badan liq saasaan ku gudbi karnaa cadowgeena oo u nixin karnaa kaga guulaysan karnaa taan madaxweynaha leeyahay aqliyadaada ballaari ha ficiltamin ha la ficiltamin mucaaradkaaga waan ogahay in badan oo makhluuqa oo ka xun inaad madaxweyne noqoto oo aan haddaad wanaag kasta samayso aanay u muuqayn waan ogay wanaag kasta haddaad samayso inaan u muuqayn waan ogeyn badan adigoo taa og haddana isdhaaf oo hala ficiltamin because adiga ilaahay wax kaa weydiinayaayo maanta xilkii haya caqligaaga ballaari talada ballaari odayaasha iyo nidaamkii dawladii hore u shaqayn jiray inaad wax badan ka bedesho waan ogay sax maanad uga bedesho lacag badan oo lulusan jiray iyo ciyaar wax lagu cuni jiray bad baabiso waxaa qaylinaya hunguriga wada qaylinayaan waan ogay haddana hunguriga laftiisii iyo haddii alla ku ruray odayaasha laftoodii mar lama wada jiro qaar badan baa laga maarma noqonaya marar badan baa loo baahanaya waxaad handaraabtay marmar badan baa loo baahan handaraabtay laga furo oo nabadgelyada looga furo oo duruufaha jira looga furo oo xaaladaha laga maarmaanka looga furo odayaasha lafteeda inta wanaagsan ee ay aan dhimanin inaad adeegsato oo ay kula shaqeeyaan baa loo baahan yahay inta hungurigu sarxin aad ka oodato iimaanka beeshay ee dhahabta wax ku cunta inta laakiin nadiifta ah ee reerahoodii shaqadoodii ku eegay oqaashu ka mid tahay inaad haddii alla ku runayo ku shaqayso oo ay kula shaqeeyaan waa laga maarmanaya dagaalka inagu socdaa waa mid dhaqaale oo isirnacayba oo nolosheena laga xun yahay nin walba feejigno halkaa joogto nin walba feejigno propaganda laynagu hayaa meel baaba'day oo dhimatay oo aan jirin baa propaganda inagu hayso inay naga xishootay inaga ahayd oo inay naga aamusta ahayd ayaa inoo faanaysa iyagoo cidlo fadhiyo qarxinaya oo baaba'ay oo dhintay oo waxba ku noolayn baa ayadana propaganda laynagu jira oo ummadda laynagu jeedinaya waxaan leeyahay dawladda saxaafadaadi baa lagaa horkeenay oo mushaar la siiyo waan ogey fanaaniintaadi baa lagaa horkeenay oo mushaar la siiyo waan ogey dadkaagi baa la kala qaybinaya lacag lagu kala qaybinaya ka feejigno wax walba oo saxaafadaada dhis oo fanaaniintaada dhis oo gacanta ku hay ummadaada oo sirdoonkaagu dhame laban laab ummadda Soomaaliland waxaa leeyahay qof waliba sirdoon ha noqdo qof waliba ha feejignaado halkiisa waxay nagu socdaa wax yar maaha aad bay u badan tahay dawaa'il badan oo waaweyn oo qadar kow ka tahay oo Turkigu laba ka yahay ayaa nagu fangareynay lacag waaliya oo lagu burburinayo nabadgelyadeenna oo lagu abuurayo xaalad oo inaga laynagu kala jibinayo oo haddii alla ku reeyo kuwa inoo cadowga la soo hubeynayo oo la rabo in xitaa gacan military laynagu qaadi karo waxaasoo dhan baa arlada ka jira idiguna meel dhow baa ka hadlaysaa meel dhow baa ka hadlaysaa waxaan leeyahay Soomaaliland ha feejignaato oo nacasku u muuqato kursiga iyo kuraasi iyo wala naga badsaday iyo wasiirada caynkana iyo meel dhow baad ka hadlaysaa noloshaadii carruurtaada iyo gurigaagii baa la isku haystaayo kuwii horena kuu laayay baa baaqigaaga dhiigooda u hilaacaya oo dalka inay ka farmaroojiyaan doonaya oo qaladkii ay nagu barteen ayay naga rabaan
haddana wayna sheeganayaan waxay leeyihiin walaalahana ayagoo ina baabinayo ina gumaadaya uma kala sokayno hees baa lagu quuri waa inan yaroo heesa oo hargeysa joogo maxaa PK ayaa hees loo diidan yahay dagaalka lala galay inankaa wax kale lagulama culoobin dalkiisu jecel baa la Soomaaliland buu jecel walaal cid kale oo dhibaato ku haya ma jirto waxa ku qaataan kuwa garxadka sheegta inankaas de waa idinku ka mid yahay waa isugu midbaad ama iyaguma doonayaan ku shaqaystaan isugu midbeen reer Soomaaliland waa isugu mid adiga Soomaaliland iyo koonfur iyo kuwa dhiigeen u hilaacay waa isugu mid macaara ha noqdo ama cali kala ha noqdo caara iyo ka yare imka heesta loo diiday waa ilmaadeen inta wax ku qaata kuma kala jaraacdo isugu mid baad waxaan leeyahay qof walba halka ka feejino madaxweynaha waxaan leeyahay dadka miday oo doorashadu ha dhacdo oo laba laab feejino maxamed xaaji ibraahim ciyaal ilaahay godka ha nuure xaalada ka adag ayuu wadanka ka soo dabaashay isagoo dhaqaalinahayn dagaalana ku socdaan oo shirkii carta lagu furay oo meel walba wax ka socdaan oo adhig lagu dul joojiyay ayuu naga soo dabaashay xaalada adag dadku wuxuu ku kala wadaa aqli iyo caaqilnimo dhaqaale ku kala waday lacag buu ku kala waday waxaan leeyahay waa laga marma wax badan afti handaraabkaagu iyo wada handaraabnaanin dagaalka ku socdaa weey waan islaamay dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh